ربك والوكيس وناقص كدوري ربك والوكيس وناقص كدوري مركاد وهرسيسي نفتيد وراتي ربك والوكيس وناقص كدوري ربك والوكيس وناقص كدوري مركاد وهرسيسي نفتيد وراتي تري ويكم ولاعي خيستي دقيقة كواي وقني كتراي كوكا تري ويكم ولاعي kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada qaybtii 65aad ee sheekadii la magac baxday mid ah iyo lur jacayl oo aad u xiiso badan qaybtan 65aad dhegeysaaba qaybtan 65aad ee sheekada saasaanta farxad waxay ku saabsantahay isla markaana mowduuc noqon doonta saasaanta farxadeed iyo saameyntii hooyahawiye iyo bilan aad bay ugu faraxday inuu aaba jaraadix la qaato hadalkooda waxayna labada dhabnood ka dhunkatay aabaheed waxayna u sheegtay in dib dambe khilaaf imaan doonin isaga iyo abtiyaasheed wayna ka soo dhaqaaqday goobta markii ay meel dhexe ay soo gaartay isla markaana baaricadda uu ka tagay waxaabay xasuus ciise muujinay ku sameysay maankeeda waxayna muhatay milicsiga baaricadda iyo siduu ku xalinayo cilada jirta waxayna laabtiis ka tiri walle baaricadda inantii nasiib u yeelataa ayaaba nasiib ku dhaaftay hablaha kale tolow siduu ii soo jiidanayo hadduu dareemi lahaa barniyaa sheegtee gabardhanba muusan eegi lahayn balse dhib ma lahan anaase u jooga baaricadde waa anigana waa baaricadde mana jirto cid dhexdeena soo geli karto wax walba oo aan ku heli karo baaricadde inaan sameeyo waa igu waajib sidii malabkii macaan badano adiga mudano sidii malabkii macaan badano naftaa mixibada maree ku xidho ayaa mooshada umeerti darta naftaa mixibada maree ku xidho ayaa mooshada umeerti darta nagolkidhirtiyo maankii ubaxow markaan ku arkaan mabsuudaya nagolkidhirtiyo maankii ubaxow markaan ku arkaan mabsuudaya ama kulanaad miirkiyo amaanka degto maalintaan kulanaad miirkiyo amaanka degto wajadaha jacayl maquurtayrko mataankii naftiyo maciinkii dhabto wajadaha jacayl maquurtayrko mataankii naftiyo maciinkii dhabto sidii maydaay adaa murugada mayra naftee maruuni dawe sidii maydaay adaa murugada mayra naftee maruuni dawe amoramiyo kumeeya midkaanu muhdo muuqiya maqalkaaga kama maarmee hayga maqna waxaa la gaaray kale ee lagu ballamay kulminta labada qoys kadib markuu baaricaddu guntamay soo celinta xiriirka qoysaskaasi kadib hooyahaweeye oo iyadu xitaa laga dareemi karo saasaan farxadeed ayay gabadheedii bilan ah oo subaxa xilliga hore hurdada ka toostay ku tiri gabadhaydiyey maanta ka waran hadda aabbahaagii oo aan ogaa ayaad wax ka dhaadhacsiiseene calashaan sidee ku dhacday taa
bilan ayaa u dhool cadaysay hooyadeed una sheegtay inuu gacliyaheedii baari cadda xaliyey waayo hawiye waxay ka war la'eed in wiilkan baari uu xiriir kala dhexeeyo gabadheedii kale ee barni ayeeshee islaantu waxaabay u aqoonsatay in bilantu tahay jacaylkeedii in xoogaa markay weedho kooban isdhaafsadeen bilan iyo hooyadeed ayaa waxaa kushiinka ugu soo galay dayrdhalo oo ah curudka reer goontursi kibriis ee hawiye walaaladeed ka mid ahaa waxaana uu isu diyaarinayay inay wada baxaan maanta islamarkaana ay gaadhaan hooyga jaraadixle si loo dhammaystiro heshiiska lagu xalinaya khilaafka soo jiray wuxuuna ku yidhi hawiyaay waataad sheeko ka bixi weydeene dee hawshii hadmaan xalinnaa haa walaalo waa la xalinayaahoo oo waxaan sugaynaa kii yaraayoo arrinkan isu dabaridayay ayay ugu jawaabtay hawiye isla durba waxaa hooyga soo galay isla wiilkii baari cadda ahaa ood muddo inay ka muuqato qurux iyo qaabdhismeed akhyaareed kaa oo uu doonayo inuu ka midho dhaliyo ujeedkii gaclisadiisii barni u idmatay in xoogaa iyo salaan kadib reer goontirsi waxay u dhaqaaqeen dhankii jaraadixle waxaana nabadoon u ahaa dayrdhale maalinkaa ciidamaysan ku harin intaan ka ahayn carruurta yaryar ee abtiyaashu dhaleen oo markaa lagu amray in bilan ay ilmahaasi maamusho dhegeystayaal halkanna waxaan kusoo gebagabeynaynaa qaybta 65aad ee sheekada laab mid ah iyo lur jecel intaynu